بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. walaalaha khayrka badan, sharafta badan, ahlul khayrka ah ee caawiyey masaajidaha ilaahay, gaar ahaan masjid dacwa. bishii ramadaan 100,000 ayaanu ku harsanaa oo noo soo gurmateen dadka maraykanka jooga, khaasatan reer minnesota iyo soomaalida yurub iyo soomaaliya joogto. waxaa jiraraco nagu riday annaga iyo culummada masaajidka markaan aragnay wiil soomaaliyeed ee kismaayo ka soo hadlay oo dhahay $100 kaliya haystaa ma soo diri karaa, isagoo 100,000 ka naxsan. waxaan dhahnay ilaaha barakanaya noo soo dir. mise dacwa hadda 100,000 wuxuu ka ururiyey 70,000. waxaa noo hartay 30,000 oo keliya oo dollar. waxaan codsanaynaa 150 qof oo min $200 ah oo aad noo soo dirtaan idinkoo ku soo hagaajinayo. haddaad tahay reer maraykan, cash appka isticmaal, waxaad ku soo qortaa waa deen bixinta masjid dacwa. haddaad joogto yurub ama meel kastoo adduunka, xawaalad kastoo soomaaliya ku soo dir, gaar ahaan xawaaladaha tawakal iyo dahabshiil. waxaan idinka codsanaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala masjidkiisa culayska deynta ka saaran oo 30,000 keliya hartay inaad ka qaadaan. ilaahay dartiis ugu qaado. waxaan idin sheegayaa marka hore xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam oo rasuulku uu dhahayo, man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljanna. waa bishaarada koowaad. guri ilaahay dhismihiisa ama deenbixintiisa haddaad ka qayb qaadato, ilaahay jannada ayuu guri kugu dhisayaa. waxa hadda aan rabno adduunka maxaan u joognaa? ilaahay inaan caabudno oo janno uuna geeyo. cibaadooyinka ibnulqayim wuxuu yidhi, cibaadooyinka weyninkooda iyo qiimahooda waxay ku xiran tahay baahida markaasi loo qabo. ilaahay salaad aad tukato waa cibaado, laakiin ilaahay baahi uma qabo salaadaasi. laakiin masjid ilaahay oo culays saaran oo 100 qof ku tukato, 100 arday qur'aanka ay ku bartaan, diinta ay ku bartaan, ducaad ay noqdaan oo la soo saaro ducaad, in maanta aad ku deenbixiso 200 wax ay tahay malaha. laakiin aakhiro waxay imaanaysaa iyadoo markhaati kuu ah oo garabkaaga taagan oo dhehaysa ilaahu midkani, iyadoo kurbo muslimiinta ay haysato. ninkii rasuulka xasan wuxuu yidhi, mu'min oo kurbaysan ninkii farax geliya. mu'miniinta masaajidka aaday u kurbaysan yihiin. kurbadan waxaa ka mid ah deynta oo saaran kow, iyo masaajidkii oo ciriiri noqday, baarkin la'aan oo ku dhacday. intii oo dhan waxaa xal u ah deynta oo la bixiyo oo keliya. macnaha masaajidka waa la waasicinayaa, baarkin uu helayaa. intaasoo dhan oo aad abuurtay, rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofkii mu'miniin farax geliya, isagana ilaahay ayaa farax geliya adduun iyo aakhiro. xadiis kalena wuxuu leeyahay macnihiisa, man faraja kurba, macnaa kurbat almu'min, qofkii mu'min kurbadiisa tafriijiya oo ka qaada culayskaasi, ilaahay subxaana wa tacaala adduunka kurbada ku hayso, hadday cudur tahay, haddii kurbo kala tahay, ilaahay wuu kaa qaadaya. 2 sheeko kaliyaan sheegayaa wakhtiga dartiisa. sheekana waxa waaye nin oo masaajid sidaan oo kale aan lacag ugu ururinayo, aan maaragtay uu dad soo hor istaagay uu dhahay masaajidka intaasaa ku harsan. yaa bixinayo oo ka faa'iidaysanayo damaanadda nebiga oo ah janno inuu gelayo, markuu galana guri khaasa in loo dhisaayo oo dadka dhan aan wada haysan. ninaa wuxuu yidhi, wixii oo dhanba anaaba qaadanayee, maxaa iigu ballanqaad, ma ii qori kartaa warqad oo aad leedahay anaa damaanad qaaday, maadaama adiga aad ururinayso lacagta, in gurigaasi jannada, inaad jannada aad gasho, gurigaasna laguu dhiso. ninka xoogaa waa hakaday. markaas haddana wuxuu istusiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ballanqaado soo murumaysnay anaga. ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa oo uu soo dirtay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku hadlayay soo ma ah hadal ilaahay uu ogyahay, ilaahayna uu fasaxay. sababta qur-aanka wuxuu leeyahay, in huwa ilaa waxyun yuuxa. rasuulka wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa. iskama hadlaayo rasuulku, wuxuu ka hadlaaya ilaaha soo fasaxay.
hadday saas tahay wuxuu dhahay haa warqadda ii keen ninkii warqaddu u keenay wuxuu ku qoray anoo ah imaam hebel hebel waxaan damaanad qaaday in ninkan magaciisa ah hebel hebel oo bixinayo deynta lagu leeyahay masjidkan in ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa uu geliyo isla markaasna gurigii khaaska ahaa loo dhiso wuu saxiixay markaasi isagoo dhahayo maaragtay muwarad aan noqotay muwarad macnaheedu waxa waaye waxaad ku degdegtay arrin oo waxay tahay aan la ogeyn calaa kulli xaal waa la kala tegey hawaa seexday habeenkii ninkii riyu arkay riyadaa wuxuu ku arkay cod daaha gadaashiisa dhahayo ballanqaadkii aad samaysay ee qoraalka ahaa waan oofinay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ballanqaadayaa ninkaasi jannana inuu galayo gurigana loo dhisaayo allahu akbar qisada labaad nooc kastoo xanuun hadduu ku hayo sadaqadaba sadaqada ay ka xoog badan tahay xanuunkii dawo u tahay sadaqaba sadaqada ay ka xoog badan tahay nooc kastoo kurba ku hayso sadaqaba sadaqada ay ka culus tahay sida ibnulqayim uu yiri waxay qaadaysaa nooc kastoo kurba ku hayso ilmaha dhib miyaa kaa haysta ama caasinimo ilaaha baari kaaga dhigayo xanuun gaarmaa ku hayo adiga ama ilmahaaga ama qoyskaaga ilaahay ayaa xanuunkaasi kaa qaaday dhegayso qisadan waana kusoo gabagabeynayaa iyadoo kooban nin ayaa xanuun dareemay dhakhtarkuu ku degdegay dhakhtarkii wakhti yaruu haystay baaristii koowaad oo dhiigga uu qaaday qoluu la soo galay wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan kuu sheego waa ogahay waa arrin kaa nixinayso xanuunkii kansarkii dhiigga ahaa ayaa kugu dhacay dhakhaatiirtana waa inay run sheegaan wuxuu yidhi xanuunada kansarka kan ayaa ugu khatarsan waayo qofka maalmuhu ku dhimanayaa marka wuxuu yidhi ani hadda waa degdegsanahay dhiiggaa intaasuu soo saaray marka waxaan rabnaa inaan ogaano jirkaaga ilaa intee uu gaaray oo dhaawac uu gaarsiiyey iyo markaasi waxaan ka wada hadlaynaa berito markaad soo laabato wixii dawo ah qaabka kulay kansar dawo ma lahan laakiin xanuunka iyo dhibka iyo qaabkii loo yareyn karo kulay dad dhakhaatiirta badanaa waxay dhahaan qofka 6 maalmood ilaa 2 usbuuc ayuu ku dhimanayaa xanuunka noocan oo kale ah ninkii waa baxay isagoo kurbaysan ma seexan soo isku gedgedinayay habeenkii oo dhan isaqada dhexe qof kurbaysan waa ileen berina balan uu leeyahay hurdaa ka timid daalkii iyo kurbadii riyo arkay marka riyo wuxuu ku arkay isagoo dhex socda beer weyn oo qurux badan markaasoo soo u socda meel fog wuxuu ka arkay haween gacanta u haadinayso haweentii gacanta u haadinayso dhankeedu u aaday markaas waxay ku dhahday kurbaa kaa muuqato haa uu dhahay dhakhtarkii shalay u tagtay wuxuu kugu soo sheegay cudurka ugu khatarsan soo maaha inaad qabto oo ah kansarka dhiig haa uu dhahay wuxuu kuu sheegay maalmo kadib inaad dhimanaysid oo waa cudur khatar oo dawo lahayn haa uu dhahay wuxuu dhahay waxay dhahday waxaad kaloo leedahay balan berito si loo ogaado cudurka faafidiisa ilaa heerkuu gaaray haa uu dhahay markaasaa wuxuu yidhi waxaan oo dhan say ku ogaatay markaasaa waxay tiri macluumaadkaa waana la soo gaarsiiyey waxaan rabaa inaan kugu bishaareeyo sadaqada aad bixisay oo aadna soo gaarsiiso oo joogta aad u bixiso ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu daweeyey beri markaad tagto bishaaraad la kulmaysaa oo ah cudurkii in la daweeyey ninka marka uu soo booday anaa salaadii subaxu tukaday waqtigii subaxday ahayd balantii dhakhtarkii u yimid dhakhtarkii meeluu fariisiyey fuxuus fara badanoo ka qaaday dheecaanuu ka qaaday dhiiguu ka qaaday kaaduu ka qaaday saxaruu ka qaaday jirkiisa waxaa la geliyey mashiin oo lagu baarayo resultigii mucjizaa dhacday waa hal maalin keliya sadaqada awooddeeda waa taas waxaa dhacday mucjizo ah ninkii dhakhtarkii oo yaabanuu ninkii u yeeray wuxuu yidhi su-aal maku weydiin karaa haa qofkii shalay ii yimid ma tahay adiga wuxuu dhahay niyo waa kurbaysnahay ha igu ciyaarin hana ila kaftamin aadaan kurbaysnahay ninkii waan ahaye maxaa soo baxay natiijada ii sheeg fayl buuran uu wataa marka oo ah sawiradii iyo wax walba wuxuu dhahay feelkan shalay adiga waaye soo maaha
sawirada adaan kaa qaaday shalay adiga sooma haa maxaan ku tusiyey calaamadahaasoo dhan sooma oo shalay marka shalay dhiig iyo sawraa laga qaaday hadda wixii faahfaahsan aan kuu sameeyey sooma haa fiir waxa meesha wixii shalay iyo waxaan fiiri wuxuu yidhi dhakhtar ii sheegay adig wuxuu yidhi jirkaagoo dhan waa nadiif wax xanuun aad qabta malaha allahu akbar ilaahay masjidkiisa rasuulku wuxuu man banaa lilaahi masjidan qofkii masjid ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay dartiisa u dhisa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiisa ugu dan leeyahay bana allahu lahu beytan fi ljanna ilaahay wuxuu u dhisayaa guri jannada marka saddex midkoodaan kaa codsanaya haddaad videogan dhegeysanaysa haddaad kari karin labadaas $100 waa soo diri kartaa 4 aan kaa codsanaya haddaadan kari karin labada 150 oo 200 aan raadinaynay si hawshaani u xiranto haddii aadan kari karin soo dir khayr allah ku siiyo $100 laba haddaadan labadaba kari karin oo awooddaas aadan lahayn noo duceey ilaahay subxaanahu wa tacaala in ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyo uu noo soo diro qof ama dad ahlu khayr ah oo deyntaas beydka ilaahay ka bixiya culeyskana ka qaada taas waa 3 waxaa kaloo noo samaysaa videogan oo ka yar nus saac ama 20 daqiiqo gaarsii meel kasto qof kastoo aad gaarsiiso hadduu ilaahay yidhaahdo wuxuu bixiyo oo sadaqa ah waxaad ku leedahay xasanaadka uu helayo in la mid ah kasoo qaad qof aa u dirtayba qofkii wuu jirracooday beydka ilaahay anoo nool ma wax gaalaan wax ku leh gaalaan ka gadan waa ogtay masaajidaha muslimiinta ee gataan gaalay ka gataan qof oo jirracooday oo ilaahay dartiisa u carooday guri ilaahay maa inta lagu lahaan karaa qaba soo qaad 500 soo diray ama 1,000 soo diray waxaa loo qoray 100,000 oo xasanaad adiga oo qofkaas gaarsiiyey fariinta intaasoo 100,000 oo xasanaad ayaa helaysaa wax alle wuxuu helo xadiis waa nabiga calayhi salaam qofkii qof kale khayr u tilmaama oo sameeya qofkaas khayrka sameeyey ajirka la siinayo mid lamida waxaa helayo kii khayrka u tilmaamay khayrka isa gaarsiiya waxaan rabnaa mar dhow insha allah idinkoo faraxsan in halkan aan ka samayno maalintii ducada oo cid kastoo ka qayb qaadatay ama video ha dirto ama ha ducayso ama lacagta sadaqada ha soo dirto halkan duco weyn aan ka samayno hadda duco khaasa waxaan idin samaynayaa dhammaantiina inta i daawanaysa marka hore oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhagahooda waafajiyey in ay ku dhacdo kelimadan horta intiina ilaahay khaatimo suuban ilaahay idin waafajiyo carabkan ilaah ku qatimo laa ilaaha ila allah taas horta waa ducada ugu weyn waa inaad ku dhimato laa ilaaha ila allah alacmaalu khawaatiimuha rasuulku wuxuu camalku waxaa ugu fiican kan qofka maaragtay kan ugu dambeeya qofka loogu khatimo oo ah camal fiican horta carabkan ilaahay ha ku qoyo laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah markaad dhimanaysaan waa 1 2 haddaad 5 tahay ka qayb qaado hawshaan haddaad 5 qof midkood aad tahay 1 haddaa aad xanuunsan tahay sadaqadaas isku furo ilaahayna xanuunka kaa qaado 2 haddaad jecesha inaad ku dhimato camal suuban xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam sanaa'icu macruuf taqi masaaric assuu dadka khayrka iyo macruufka iyo sadaqada sameeyo ilaahay wuxuu ka dhowraa si xun inay u dhintaan ma rabtaa xusnul khaatima inaad ku dhimato sadaqadaas ka qayb qaado 3 muraad khaasa ma leedahay sadaqadaas ka qayb qaado xadiis waxaa jira rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu dhahay haddii sadaqa aad bixiso oo baahi loo qabo baahida adiga aad qabto ilaahay uu ku dhamaystiraya 4 caruur ma leedahay ama guri ama qoys in nolol raaxo leh oo baari caruurta ay kugu noqonayaan ku noolaato iyo ninkii iyo naagtii iyo baari isu ah haddaad jeceshahay ka qayb qaado midda 5aad ugu dambayso inaad noolaataa rabta adoo xalaal cunayo oo kaliya xaraamna ka fogaad waxaan ilaahay kaaga baryayaa sadaqada ka qayb qaadato ama aad noo ducayso ama videoga aad faafiso albaabada xalaashoo dhan ilaahay inuu kuu furo albaabada xaaraantoo dhan ilaahay inuu kaa oodo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu